بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا لها مسلمين تا ميلكستو أتشوكتان فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته waxaan ogsoonahay bishii faadilka ahayd ee barakaysnayd ee khayrkoodu badnaa oo Ramadaan ayaan ku jirnaa bishaas waxyaabaha acmaasha saalixa ah ee laga faa'iideysto ee ugu waaweyn waxaa kamid ah qiraa'atul qur'aan akhrinta qur'aanka kariimka ah waxaan ogsoonahay oo baraarujin mudan ummadatan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummad ilaahay doortay waa ummadihii kale oo dhan afmeertay oo khatimtay waa ummadihii kale oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fadilay waa ummad risaala caalamiya wadata waa ummad adduunka waxa weeye daawadiisii iyo kitaabkii lagu hagayay ummad wadata weeye waa ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka cabirayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummad la soo diro tii ugu khayr badnayd waliba ummadaasi ummad adduunka iska nool ma aha ee waa ukhrijat linnaas dadka ayaa loo soo saaray waa ummad waxa weeye dadka waxay ku caafimaadi lahaayeen wada oo quraanka iyo diinta iyo manhajka rabbaaniga oo adduunka oo dhan ku wajahan oo lagu khitaabaya weey sidoo kale ummadani iyadoo sidaas u fadli badan ayaa haddana ummadihii hore way ka cumri gaabanta oo waa ka cumri yar tahay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ummadiisa da'deedu ma bayna 60 ila 70 ilaa 60 ilaa 70 ayaa ugu badan inay gaadho wixii inta dhaafaana waa wax yar maadaama umamkii hore ay naga cumri dheer yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala fadilida uu ummadan fadilay ee uu doortay waxaa kamida inuu siiyay waqtiyo khayr badan oo ay ku qabsan karaan oo ay ku goosan karaan midho iyo khayraad fara badan oo lagu goosan lahaa sanawaad aad u dheer weeye waxaa kamida tusaale ahaan bishan Ramadaan gaar ahaan laylatul qadriga oo quraanku uu tilmaamayo 1000 bilood inay ka khayr badan tahay oo 83 sano iyo dheeraad muddadu ay noqonayso weeye waxyaabaha marka walaalayaal bishan khayrka badan waxaa kamida qiraa'atul qur'aanka maadaama uu bishan waxyaabaha ugu fiican ee la qabto uu yahay awgeed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bishan dhexdeeda la soo dejiyay bishii Ramadaan khayr bay leedahay quraanka akhrintiisa iyo barashadiisuna khayr bay leedahay labada khayr say isu xoojiyaan oo ummadda muslimiinta oo markay la yimaadaan ay midho weyn iyo khayraad ay u goostaan ilaahay hortii iyo aakhiro ayaa la soo dejiyay quraankii bishan Ramadaan markaas haddana laynoo jideeyay oo laynagu tirtirsiyay quraanka in la akhriyo quraanku waa hadalka ilaahay oo adiga kugu wajahan waa fartiin iyo risaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta oo qaangaadha oo mukallafa lagula hadlayo oo la leeyahay wadada ha marin waad ku halaagsamaysaa taas mar manhaj dhan oo nololeed oo aad saad u noolaan lahayd ah quraanku weeye tirtirsiinta uu quraanku ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrintiisa inagu tirtirsiiyay iyo shariicada islaamku hadalka ilaahay inaan akhrino oo ilaahay la koodno oo la faqno oo waxa ilaahay naga rabo ogaano oo halka inoo wada ogaano oo khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala inala doonayo ogaano ilaahay subxaanahu wa tacaala shariicada islaamka markuu nagu kalifay oo dusha naga saaray inalama rabin inuu culaysina saaro oo takliif iyo dhib ina saaro oo arinta quraanku waa diiday la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ilaahay wuxuu inaga reeba inala rabaa oo inala doonayaa sida uu quraanku tilmaamay wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati biidni liibaanta if ya aakhirada ah oo janno iyo naxariis Allah wala inala rabaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sharcigu wuxuu inoogu baaqay quraanka inaan akhrino nabigu wuxuu tilmaamayaa qofka akhriya xaraf quraanka kamida 10 darajo oo ajar u leeyahay waxaan ogsoonahay xaraf macna ma leh wax macno oo iminka xaraf alif ama laam ama miim quraanka xitaa dhexdiisa macna ma xambaarsana haddana heer waxa la gaarsiiyay xarafkaas oo macnaba aan xambaarsanayn aad ajar ku helayso way quraanku walaalayaal waa waxa qofku hadduu haysto oo uu barto oo quraan yaqaan uu yahay oo quraanka la nool yahay aanu wax kale u baahnayn walidaalika ba quraanku
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga reebayaa oo lagu dhaleecaynayaa mar hadduu qur-aanka haysto wax kale in damac iyo doonitaan ka galo adduunye oo dhaldhalaal adduunye uu u hanqaltaagaa weeye markaasuu ilaahay subxaana wa tacaala suurati taaha markuu kaga sheekeeyey qur-aanka soo dejintiisa iyo in ilaahay subxaana wa tacaala naxariisuu nebiga la doonay oo la maagay ahayd oo uu soo dejiyey inuu ku liibaano taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkiratan liman yakhsha markii sidaas qur-aanka looga sheekeeyey ayaa suuradda qaybaheeda dambe ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunyaa linaftinahum fiih warisqu rabbika khayrun wa abqa mar haddii qur-aanka aad haysato nebi maxamedow oo ilaahay kula doonay oo kugu sharfay wax kaa maqan ma jira ha u hanqaltaagin walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum waxyaabaha adduunka dhaldhalaalkiisa ee dadkii kale aanu isugu ladhnay oo isugu darnay oo aanu siinay yaan damac kaa gelin oo haw taagmay sidoo kale fi suurati alkahf ilaahay subxaana wa tacaala markuu yidhi watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika ayaa waxaa aayadda ku xigta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وحوي مركي قرآن كي إلهي لقصو شيكي ولو يلي آخر كتاب كي إلهي كوسو ديشي أو ذاتك بر أيا ليلي ولا تعد عيناك indhahaagu yaanay tallaabin oo waxa weeye aanay aadin waxyaabaha kale ee dadku ay qiimeynayaan waxaan aayadaha ka faa'iideysanaynaa qofka qur-aanka haystaa waxa weeye wax ka maqani ma jiro sida qofka haddii adduun wax alla intuu ka doono uu haysto asuu qur-aankii ka maqan yahay wax uu haystaa aanu jirin weeye waa meesha nebiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey xadiis uu leeyahay guri ka maran waxa weeye qur-aanka ilaahay ama qof calooshiisa qur-aanku ay ka maran tahay waa wax kharaab ah oo ku daafad oo kala awey qur-aanku walaalayaal waa waxa qofka yaqaana hagaya oo dantiisa adduunyo iyo tiisa aakhiraba baraya oo wadada khayrka kugu hagaya weey ilaahay wuxuu leeyahay inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam qur-aankan wuxuu kugu toosinayaa tii toosnaanta badnay waxa weeye arintaas xitaa arrimaha aakhiro kaliya ma qofka dantiisa adduunyo haddii qof ahlu qur'aana uu yahay ilaahay markastaba tubta saxan iyo danta ay ugu jirto ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajinayaa weeyaan marka waxaa la rabaa qofka muslimka ah inuu qof qur'aankii la nool oo akhriyaya uu noqdo weeye salafka ridwaanullaahi calayhim waqtiyadan oo kale aad bay qur'aanka u akhriyi jireen iyadoo la ogsoon yahay in ay cilmiga ku dadaali jireen ayaa haddana waxaa laga sheegay a'immada sida alimaamu maalik ibn anas الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إنه إسكول لابد جيران أحاديث يا سنة يا علمي كله أو قرآنك ونأيوسو تشيت سنشرين وي قرآنك قفك يقانا أدون كان يساق كشر فن وضدك كهرية آخرنا يساق كشر فن وضدك كهرية أنت بحاول دليله markii ummadda islaamku ay tukanayso salaada la galay waxa la yiri ummul qawma aqra'uhum likitaabillah dadka waxa mansabka imaamada iyo jagada inuu ummadii hor istaago oo dadkii alle u dhax noqdo tujinaya quraanka ka ugu yaqaan markii aakhira la tagay oo aakhiro ilaa qabriga ka bilaamatay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qatla uhud ama shuhada uhud markuu aasayay wuxuu lahaa ayuhum أكثر أخذا للقرآن كودي قرآنك ugu yaqaana markaasuu iilka hordhigay weey marka quraanka qofkii isaga waxa weeye ku sharfan sidaas ayaa la rabaa in la barto quraanka waxa la rabaa marka la akhriyo in lagu tadabburo quraanka waxa weeye hadii lafdigiisa la kor cararo sax ajar waad ka faa'iideysaa waad akhriday laakiin marka uu ku daaweynayo oo aad quraankii la tafaaculayso oo waxa uu ka raba fahmayso oo dantii loo soo dajiyay liyadabbaru aayaati waliyatadakkaru ulul albaab inaad ku waansanto oo tubta saxda aad ku raacdaa waa marka waxa weeye aad macnihiisa garanayso dhaqanka in badan oo Soomaaliya kamid ay taqaano oo ah quraanka xarafkiisa in la barto waxa weeye macnihiisana aan la danaynin oo tafsiirka culimada laga dhageysanna arin fiican ma bal salafku bid'a ay ku tilmaameen Abu Bakr al-Tardushi rahimahullah kitaabkiisa la dhaho البواعث والبدع والحوادث
وحكو بابيستي فصل فيما استحدثه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون تفهم معناه وحيابها بدعاء وسلف كأنا يقول وددكو أي ديبك كانان إن قرآن كحرف كيسي لبرتو أن معنه يسي لفهمين ويه سلفكو طبعا آيات هذي برتان آيات كلكم الدليل الله معناها برتان قرآن كوحن وجدا وين يا وين نروح هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.